Assalaamu calaykum. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa fahan la'aanta qaanunka nolosha. Qaanunka la yiraahdo sabab iyo natiijo. Balse intaynaan muuqaalka gudagelin, muuqaalka like saar. Sidoo kale haddaad nagu cusub tahay, subscribe channelka. Haddaad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay, siina share gare. أهلا وسهلا يا رمضان، شهر التوبة والغفران. مرحبا بك رمضان رمضان، شهر الذكر والإحسان. أهلا وسهلا يا رمضان. Qaanunka micnihiisu yahay marka sabab la helo ayaa natiijo la helaa. Sabab la'aanse waxba kuma yimaadaan. Ilaahay quraankiisa ayuu noogu cadeeyay arrintaa, wuxuuna leeyahay wajacalnaa kulla shayin sababa. Shay kasta dhicidiisa sabab ayaanu yeelay. Dadku khalad ayay ka aaminsan yihiin qadarka. Marka uu shay dhaco iyagoon eegin sababta keentay ayay qadarka Ilaahay ku sababeeyaan. Rumaynta qadarku waa mid ka mid ah lixda iimaanka, waana waajib. Qofka beeniya qadarkuna waa gaal. Laakiin waxaa muhiim ah qadarka Ilaahay in loo rumeeyo si sax ah. Tusaale, ruux baa si ula kac gaari ordayay isugu hortuuray. Gaarigii ayaa sidaa ku jiiray. Mid kale ayaa shaqadii soo xaadiri waayay oo iska seexday. Kadibna shaqadii sidaa awgeed looga soo eriyay iyo wixii lamid ah. Bal ka waran haddii ay dadkaas yidhaahdaan Ilaahay baa noo qadaray, ma ka aqbali lahayd arrinkaa? Ilaahay Maryam binu Cimraan iyadoo oo foolanaysa ayaa la amray inay jirida geedka timirta ruuxdo si ay midhuhu ugu soo daataan. Ilaahay wuu awoodayay sabab la'aan inuu soo daadiyo, laakiin waxa Ilaahay doonayay inay iyadu horta awoodeeda isticmaasho oo sabab la timaado. Sidoo kale Haajiro oo ahayd Nebi Ismaaciil hooyadii, markii Nebi Ibraahim cidlada kaga tegay iyadiyo ilmaheedii haraad xun uu ku habsaday, waxay 7 jeer oroday Safa iyo Marwa inta u dhaxaysa. Kadib ayay idanka Ilaahay biyihii ugu soo burqadeen. Ilaahay sabab la'aan uu karayay inuu biyaha ugu soo burqiyo, laakiin waxa Ilaahay doonayay inay iyadu horta awoodeeda isticmaasho oo sabab la timaado. Haddaba haddii aanad waxba goosan maysid. Kolba waxa aad beerato nooca uu yahay ayay natiijadaadu noqonaysaa. Haddii aad galley beerato, galley ayaad goosanaysaa. Haddii aad baradho beeratana, baradho ayaad goosanaysaa. Waayo qaanunka nolosha ayaa sidaa u dhigan. Arrin kale oo qaldan baa jira oo dadka qaar aaminsan yihiin oo ay nasiib wax lagu helo. Waa run oo nasiib waa jira, laakiin nasiibka cidii dariiqeeda marta ayuu la kulmaa. Ka soo qaad in nasiibku albaabkaaga soo garaaco, laakiin aad ka furi weyday, kadibna uu ku dhaafo oo albaabka jaarkaaga garaaco. Jaarkaagu si ay ka furaan, kadibna aad tidhaahdo alla anigu waa nasiib daranahay, jaarkayguna way nasiib badan yihiin. Dr. Ibrahim Alfiqi waxa uu yidhi dadka guusha gaadhay waa run way nasiib badan yihiin, laakiin nasiibku waa mid ay gacantooda ku samaysteen. Haddaba haddii aad tahay mid aan fahansanin qaanunka nolosha Alle u dejiyay ee sabab iyo natiijo, oo adigoo fadhiya aad leedahay alla ii qadaray amase nasiibkayga xun, ogow inaad fikir qaldan aaminsan tahay. Taas waxaa la mid ah adiga oo salaada, soonka, xajka iyo wixii lamida iska daaya, kadibna yidhaahda Ilaahay hadduu janno ii qoray waan geli, hadduu naar ii qorayna camalkaygu waxba ii tari maayo. mayla aragtay daawadow fikirkaas inuu qaldan yahay. Haddaba haddii aad adigu hore uga mid ahayd dadka iyagoo aan waxba shaqaa qaban xujo ka dhigta qadarka, ogow inaad dariiqa guuldarrada adigu xorriyadaada ku dooratay. Daawade waad ku mahadsantahay haddii aad soo gaadhay ilaa dhammaadka muuqaalka like saar. Sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay, subscribe channelka oo nagu soo biir. Haddaad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay, siina share gare. Wassalaamu calaykum.